nabigu wuxuu tilmaamay habeenka markuu qofku tukanayo quraanka akhrinayo samada malaa'ig baa ka soo degaysa malaa'igtaasi way soo degaysaa say u socoto marka dambe wuxuu nabigu sheegay in qofka quraanka akhrinaya afkiisa isa soo hortaagayaan aayadii afkiisa ka soo baxda afkooda ku dhacaysa way soo degeen malaa'igtaas waxa uu dalilay xadiiska sahih muslim usayd ibn hudayr aqalka ardaagiisan ku tukanaya habeen buu salaadii anigoo ku jira farasna halkaas uu igu xidhan yahay inaan dhalayna halkaas uu hurdaa oo yar salaadii san u tukanayay faraskiiba mar qura joogsan waay farasku waa dananaya marba ducbu isu dhufanaya markaas waxaan war faraska maxaa jirto wuxuu arkay farasku salaadii quraankiina waa macaansanaya waa ku jira suuratul kahfi baan akhrinayaa bil marka faraski waa joogsan waay waxaan isiri waa waalid wax dhalay arma intuu xariga goosto ama uu ilmaha yar lugta lagu hayo qoobka ku dilaabaan salaadii baan ka baxay faraski waa degay kor baan eegay mise halkan dhow waxaad mooday xidiga waaweyn oo ifaya baa dib u sii noqonaya oo dib u guuraya halka madaxayga ka sareysa nabigi wuxuu sheegay salawaatullaahi wasalaamu calayhi xalay arintaasaa dhacday tilka sakiina waa malaa'igta magaceeda la yiraahdo sakiina xilliga quraanka la akhriyay soo degtay oo dhageysataa nabiga calayhi salaatu wasalaam bal guriga habeenkii intaad ku tukato intaasoo malaa'ig ay soo degaysa ka war dushiisa iyo daaradiisa iyo qolkaad ku tukanaysa ay soo galaysa ka war maxaad u malaynaysaa gurigaas habeen kasta malaa'ig tirada ilaahay yaqaan soo degayso maxaad u malaynaysaa